السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفي عم إيه مقلع. أوكي. مقعي وأنا نعيم محمود شيخ. هذا واحد يرسك الشيكية. waxaan soo qalin jibiyay muddo sanad ka hor waxaan ka soo qalin jibiyay wadanka Hungary Ungen muddo sanad iyo 2 bilood ka hor haddana waxaan sameeyaa waxaan doonayaa inaan ku takhasuso caafimaadka guud oo cilmiga medicine musalmin laakari la dhaho maanta marka waxaan ka sheekeyn doonaa mowduuc oo runtii aad u weyn لكن واسوكوبي دونا قضبض ugu muhiimsan bas ayaan idin sharxi doonaa insha Allah waa daryaalka caafimaadka ee Sweden mase svenska sjukvården runtii qofka bukaanka markuu xanuunsado su'aalo badan ayuu isweydiiyaa walwala haayo iyo murugo wuxuu rabaa sida ugu fiican oo markano caafimaad u heli karo inuu helo laakiin su'aash ugu weyn waa maxaa sameeyaa runtii waxaa jirto calaamado oo go'an oo soo koobo oo u baahan tahay ina acute sjukvård la tago mustaqbalka degdega ma loo baahna markasta in xagga la tago waxyaabaha oo noloshaada markana halis ku ah bis waaye marka hada tusaalada soo qaado goorma aadaysaa daryaalka degdega waxa la ka tagi karaa marka oo xarumaha Vår Centralka oo ku agdhow markay xiran yihiin habeenii camal oo xanuun zaid ku haya oo markana habeenkii la soo karin markaas ayaan tagi kartaa mararka kale waa marka xanuun oo awal hore u haysan jirtay markana ka sii daro camal tusaale ahaan sonkora qabtaa kadibna sonkorta aad u kacday insulinka wax way ka taraysaa marka waxa yeelata calaamadahan oo sonkorowga oo noloshaada halis ku ah markaas la tagi karaa iyo amal marka ku xanuunto breast smata mas wadna xanuun marka yeelatid oo mas wadnahaada ku qaraac isbedelo oo wadna gariir ama neefqab mas waxyaabahaas oo nolosha halis oo bas ayaa acute sjukvård la tagi karaa mas marka shil oo gashid oo markan dhiig badan ka baxayo gubisnaash camal maxaa la qalalka epilepsy waxyaabahaas dhan oo lagu soo koobi karo aad u yar ayaa sjukvårdka acute la tagaa mararka kale waxa la sameeyaa ma la sidhibo mar walba haddii shaki ku qabto telefoon jira la waco oo 1177 la dhaho 1277 markaas telefoonkaas ayaa ka qabanaya waa sjukvårdskur mase kalkaalisooyin oo markana qiimeynayaan xaaladda ku sugan tahay marka way ku wareysan doonaan su'aal badan ay ku weydiin doonaan markaas waxay qiimeynayaan xarumaha caafimaad oo adag ku haboon ay ku sheegi doonaan markaas waxay ku dheeydaan ama Vår Centralka aad ama meesha degdega markana acute-ka aad ay ka hadhow ku qiimeyn doonaan marka sawirkan cagaaran maxaa u moodin inuu yahay yaa qiyaasi karo جاد ماهن محو مودين خد رواية أو سباريس لده رنتي أد معايها مركا حاجة سليد لوشيلا لكن قصيرة جرتو مركا يراي أيا قبل يغير الداد يغير فرانتي لقده مركا هي هاد وقت سمر مال والبحر انتهى أو هبين ولبه مجدي مركنا وقت هبينه انتهى كده فرنتي ماسكة تقطع مدحو فصله أو علاش داوي كرا مركز هويدي يا إلفا خوتي خوي وعده طلع في مدالسي الله ده سباري صوبا وكري مركنا مرخ لقسمي خضريجان مركز دكانو هوستن عربي تجنا أو أفريقيا الله تنسى عسكفريه ولا قصة مركا فرنتي ساعة كده بصابح جود أنا مؤبهنين إن أكيد كلا جيا لو إن لصالو جاء علاشنا مداوعين مركوي في عنت رنتي إنا لامبركان لوعة إلفا خوتي خوي واحد جرى لدها إيجن رميس إسكود بين أو مركنا مس إسديوان جيلين قال هاند على هداربت إنا لكل أنت دكتور أو تخصص وحكو تخصص تصال أهان مقارك وحكا صابحة
marka ward centralka dhakhtarka daaweyn badan ayuu ku soo qoray wixii ka tiri weyn marka waxa rabtaa dhakhtar oo markaan haraga bini'aadamka ku takhasus bis in la hadashid marka waxa jirta runtii laba shay la sameeyo koo waxa ward centralka aadi kartaa dhakhtarkaada oo family laakarka la dhaho mase hamsa ward central laakarka u tagaysaa marka asaga ayaa remisku qoraya waa sida ugu sahlan la sameyn karo si kale waa haday telefoonkan sheegay elaba khutiyo website leeyahay mas hamsida kaas ayaa account ku samaysanaysaa mas konto markaas warqad online ahaan u buuxinaysaa iyo waxa qoraysaa waxyaabaha dhibaatooyinka ka hayso kadib toos ayaa u dirsan kartaa dhakhtarka oo specialistka ama web ahaan ama website ahaan u samaysanaysaa ama warqad ahaan inta soo qoratid warqada oo print soo print gareysatid ayaa buuxinaysaa kadibna postada markayna u diraysaa runtii maanta marka wax inta badan maanta waxa ka sheekayn doonaa daryeelka caafimaadka oo laba qodob waaweyn loo qeybiyay waa open ward iyo sluiten ward marka waa bukaan socod mise bukaan jiif oo af Soomaali ahaan lagu sheego waa maxay bukaan socodka waa isla maalinta ayaa guriga aadaysaa tusaale ahaan xanuuna ku hayo dhakhtar u tagaysaa dhakhtarkan daawo ayuu ku soo qorayaa wuxuu ka taa antibiotican hal week cun markaas gurigaada ku dhamaysanaysaa daawada uma baahnid in isbitaal u seexiyo mise waxyaabo kale bukaan jiifkana waa dadka liita lagu talgalo oo loo baahan in la seexiyo isbitaal kaasna waa sluiten ward wax kale jirta qodob kale oo saddexaad oo la hemshuik ward waxa lagu tagalay shaqaalaha caafimaadka oo dadka guriga ugu yimaadaan way marka degmo kasta mise commune kasta asaga markano xukuumad dadka u baahan كل أنت بنا دوقوشنك وبهن أو ويقول بين الديق اللي قاعدة كوم تقطع داوينك الديق خفيفية وقاعدان عمل معلومة البوا إن الديق اللي عبرة سيد أيك وديق بحن مرة كواس عمل أنت بنقولي على طرا هم خوي كود مرة هذا واحد شيء قدونا سمسك خوي كود يعني مثلا عافماتك سويدن سيدو أوك دسينه كو مرة هذا وجدين صدق جيس كان ماشي سالكيس هوسا بيمار وودا كقرن أو معناه كو أو وور سنترال كشقيا كل قيب وين كمد دريالك عافماتك وور سنترالك بيمار وودك ماشي كان له صدق جيس كاد لو جد ماشي أوكره ومضاعه وسبيشاليست وودك وتخاطرت ومركنا كل تخصصين وحيابه kala duwan hospital inta badan joogan marka hospitalku aan karaa mid oo Landshuis oo gobolka leeyahay mise dawladda midna waa mid oo jaamacad markana wax dadka baro Universiteitshuis meesha saddexaadna waa Ward Central marka maanta hadda waxaa sheegi doonaa xarunta caafimaadka Ward Centralka runtii xaafad walba mise degmo walba Sweden way leedahay وانا محلها شرعي السي قف والبا او سويدش مس سويدن دغن انه markana Ward Central actis ka dhawiha marka Ward Central magacyada badan ayuu la baxaa Ward Central محلها family محلها hus laakar mutagni magacyada badan la baxaa marka waxyaabaas marka xal u sameyn kara dadka markii rabaan in miisaan iska dhibaan balwad iska bixiyaan iska joojiyaan hargab wax kasta cudur walba lagu tagalay inuu Ward Central loo tago horta wax shay muhiim ah waqtiga in la ilaaliyo Soomaalida horta hadaan ahna ilaa waqtiga ayuu nagu dhibay marka waan inaan ku dadaalnaa waqtiga inaan ilaalino runtii sababta qof walba waxa lagu tagalay waqti kooban oo dhakhtarkiisa la joogo waxa la yaabaa dhakhtarkaada inuu journalkaada soo xifdiyo oo soo diyaariyo hada u imaan weyse koo adiga ayaa markana faa'iido meesha markana ku qabin caafimaadka u baahnid ma helaysid waa dhakhtarka miskiinka waa lagu goysay waana uu dhibsanaa marka runtii waqtiga in la ilaaliyo aad u muhiim u tahay marka waqtiga maadaama yar yahay waxa la xalahaas planeerat bisaka jira wax la dhaho waa balan la soo qorsheystay
marka inta badan ma ahan degdeg voice centralkaada wacaysaa waxa dhaysaa waxa raba dhakhtar in la hadla maalintaas waxna ma ahan oo degdeg isla markii daawo u baahan waa wax la sugi karo markaas inta badan waa 30 daqiiqo leedahay in dhakhtarkaada la kulantid marka 30 daqiiqana waa amal halka shay aad u imaad ina ka sheekaysid ma ahan cudurada dhan oo sanadkii haystay ina hal mar u soo wada sheegtid hadii kale loo dhibsanaya waxa muhiim ah cudurka masoo problemka ku haya bas ina ka sheekaysid hadoon dhakhtarka waqti badan u gelinaa adina sida uu fiican ayaa daawo loo siin doonaa laakiin hadaad mar kale ina imaatid waxyaabo kale ku hayaan arimo kale waqti cusub waa inaan la buukeystaa ballan degdegta waa acute besak waa 15 daqiiqo bas marka acute besak ma laga wado wax ama nolosha masanafta halis ku ah ma laga wado oo amal wax oo si fudud loo daaweyn karo oo amal hargabka qofka hadii neef qabiyo allergy mas xasaasiyad haduu qabiyo marka taariikhda cudurka iyo baaritaamo iyo waxyaabo kale xitaa lagu sameyn karaa voice centralka hadda ayaa mar dhow ni sheegi doonaa waxa ka shaqeeya voice centralka dhakhtarka guud oo cilmiga guud caafimaadka ku takhasusay almeelakarna cilmi balaaran ayuu haystaa runtii caafimaadka guud cudurada joogtada ah ayuu daaweeyaa marka waxaana muhiim ah voice centralkaad markasta inaad dhakhtarkii u tagtid waayo meesha kalsooni ka dhalanayso wasbirinaysiin dhakhtarkana khoonaalkaad u yaqaana wuxuu dhaha doonaa camal heblaayo daawadaas way dhibtaa maalo hore u qore allergy ku qaatay maso hadhooti markaas baratiin ma u baahnid inaa waxnan intaa soo bilaawdid iska sheekaysid journalkaada wuu si fiican u bartay midda kale dhakhtarka iyo patientka labadooda way u fiicantay inay isbartaan marka waxyaabo cudurro badan lagu daaweeyaa sida awal ni sheega voice centralka ka hortagga cudurrada حتى قفك هدو عمل دي كرقة مثلا كرتي حاجة كعسنتها بارتهم بدن أيوه سمين كراسي الجهر تجا عذرة إني كود عن عذرة ذا فضل أيوه دوايا دكتور كجودك كو كلنا حقود رار رميس تخصص واشنطن لها كشقي حتى كالكاليسوين مركن حرونت عفماتك كشقيان وحنا لها ديستريكت خاتشكا انت بدن أريما فضل أو دكتورك وبعنين إنه سمين أي قابلان تلال كدتك نبردي نظيفيان محل بارتهم بدن عذرة joogtada إحتا ويليهن كو تخصص عمل أسمع خاتشكا مثلا كو نفط dadka qaba oo barkira caawiyaan كو محل diabetes خاتشكا jirto waxa laga yaabaa dhakhtarka in sanadkii hal mar ina u tagtid marka neef qabtid مثلا dhiig kar marka qabtid oo osh control dhaha waxa laga yaabaa kalkaalsida ina bil walba u tagtid oo hadoo ku markina control ku sameeyso waxa kale joogta xanaanada hooyooyinka masabaan mushkil mutagning wixii qaabilaan su'aalaha ku saabsan dumarka iyo maxaa lahaa sida dhasha la kala fogeysta amal naagta diirta inay kala fogeysta caruurta ilaahay awlaad bixiya dadka awlaad la'aanta haysa amal ay ka marka baaritaamo badan ay ka qaadayaan marka كل أي كقابلسن بان مشكلة متاجرين نعت مرك أورك لهذا وأنا العقل الآن مرك واحد كل جرتا حنانا عروف تبي سي واحد لو طلق الما مركي لشتان ومجقيهين إلى مركي الحسن كجاران أنتي سكال بلاون مركا بلان الآن وما أبهند إنها هرؤسي وعدد واسكتها كرتالة مشى talaalka cunuga cunta la'aan haduu hayso haduu koritaankiisa wax ka maqan yihiin waa la socdaa cunuga haduu hadli karin dad markana oo locoped ka caawiyaan sidoo hadla loo keen karaa marka waa runtii weyn waana muhiim in cunuga xaq la geeyo maadaama sanadaga uu horeysay ku ugu muhiimsan cunuga horumarkiis in la fiicnaysiyo hadii kale hadoo markuu weynaaday halis ku tahay wax kale jirta la dhaxo gymnast ku maxal laha dadka jimicsiga markana ka caawiyo qof amal haduu maskaxda dhiig ugu furanta amal ma socon kariyo socodkuuna mar labaad bartaa marka daciifnimo kala guud waayeelnimo shil haduu soo gale waana runtii muhiim in gymnast la aado dad wixii ku dhahayaan
dhaqtareeday maxaa hooyadii manaas dhiigeena ma daawo la isoo qortid xanuuna ahay daawadaas leh hadhow cudurka ka booda saas ma ahan daawada wixii ka caawinaysaa jirka xanuunku way joojinaysaa laakiin jirka inuu adkaado jimicsi u baahan yahay marka runtii hooyadii manaaska aad u muhiimta u tahay hadaa rabtid daawada ugu fiican inaad heshid kuwa kale jirta la dhaho la taliya arrimaha bulshada curator qofka hadduu haysto hadduu qabato bulsho camal su'aalaha maxaa la arrimaha bulshada camal hadduu murugusku arko mise tusaale ahaan qofka shaqada laga soo eeriye wuxuu u baahan yahay qof inuu la taliyo wax inuu la sheekaysto qof camal haddii qof ka geeriyoodaan maxaa waxa maskaxiyanka camal curator markuu tali ku siinaysaa wax u baahan tahay dietista jirto inta badan way leeyihiin warshooyinka qofka camal hadduu u baahan yahay cunto gaar ah dadaa jira allergy ku ah burka camal ma cuni karaan marka cunto waxay u baahan gaar ah oo diet gaar ah qofka sonkorta haddii haysato sonkor maxaa la lahaa diabetes hadduu leeyahay cunto gaar u baahan yahay qofka hadduu zaaid u cayilan yahay inuu iscaatay camal marka dietiska waxay ku siinaysaa nafaqada ugu fiican jirkaada u baahan yahay aad u mahadsantiin inta samaanta inta kooban